dhalinyarada iyo haldoorka beesha biciidee degmada Garadag ayaa kulan warbaahineed ku qabtay degmada Garadag kaasi oo ay kaga hadlayeen arrimo dhowr oo ay kamid ahaayeen colaadihii dhawaan ka soo noqnoqday degmada Celaf Weyn iyo shirkii beesha Garxatis ugu soo gabagaboway deegaanka Goof ee gobolka Sanaag. sidoo kale waxay soo dhaweeyeen dhalinyaradan iyo haldoorkani hadal dhawaan ka soo yeeray Suldaan Saciid Yuusuf Xaaji Ducaale iyagoo geesta kana dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda Somaliland ee uu garwadeega ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kadib markii ay bedel ku sameeyeen ciidamada asluubta ee degmada Garadag. waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan: xukuumadda marka koowaad marka labaadna waxaan u baaq u diraynaa beesha ay shaqaqada naga dhex dhacday 3 sano naga dhex taagnayd aan ku horeeyay qodobka xukuumadda waxaanu leenahay 3 sano muddo 3 sano way imika halka shaqaqada ka socotay maalin walba xukuumaddu weynaysay waxa la hooyay ka gaaraysan ma jirin wax go'aan iyo wax riisan oo ka soo baxayna ma jirin markasta oo xukuumaddu timaadana dhinaca waxay saaraysaa annaga oo mar walba anaga cadaalad darro nagu sameeyay waxaan ummadda Soomaaliland u sheegaynaa in markasta ay xukuumaddu timaado halka iyo goobaha shaqooyinku ka dhacayeen in ay xukuumaddu halka dib ugu noqoto ay soo saxdo xukuumaddu ay arrinka si Soomaalilandnimaduna aanay waxba u noqon Soomaalilandnimadana ugu wanaagsan laga yeelo. waxaan leenahay xukuumaddu arrinka ama ha iskaga baxdo xuduudaheeda ha sugato ama si cadaalad ku jirto oo labada dhinacba ay ku qancaan ha u dhex gasho xukuumadda intaas aan leeyahay. aanu soo gudbo beesha aan walaalahay ee shaqaqadu inta naga dhex dhacday waxay marayaan inay maanta yiraahdaan Garxatis bari baan la yaahdaa. annagu sheegan mayna habar jeclo bari iyo habar xabashada bari toono biciido Yoonis baanna annagu biciido Yoonis baanna ama Garxatis bari sheego ama Buntland ugu doono ama Goof wax ku ruurso adeer waxaan u leenahay xababaro dhurwaali baa xeelka mare. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi la sheegaya shaqaqada gobolka Sanaag intaaba ka socotay ee 3 sano ka socotay ragii dhigay ee xukuumadda kamid ahaa markii hore xukuumaddii hore kamid ahaa ee xukuumaddii Siinaaye kamid ahaa ee ay kamid yihiin wasiirkii arrimaha gudaha ee hore Duur Caraale Maxamed Duur Caraale waa ragii waxaan ku wari halka ka taaga shaqaqada ee waxaan ku wari haday rasaastii xukuumadda tahay siinayay haday qoriyo ay xukuumaddu kamid tahay siinayay ee intaaba shaqaqada ka waday lambar koob buu ka yahay wasiirka arrimaha gudaha waxa ku xigay ina waran cadde baa ku xigay intaaba nimanka wasaaradda arrimaha gudaha shaqaqada tiigo heli buu keenay sawixtaa ina waran cadde uu keenay rasaas iyo hub oo buu si qaab daran buu ugu dhiibay intaaba waa la daday waa dadmi weeyay hadeer waxa weeye ninka koowaad ee hadan lambar 1 ka hela waa Cabdiraxmaan Cir ee intaaba dabada ka wadi ee madaxweynaha qaran dalka ka doonay waxa weeye beesha aan isaynay beesha Saciid Yuunus waxa kuuri Saciid Yuunus badamaahay waxa weeye Garxatis soo dhan weeyadi waa loo yahay waxaan ku ruuxay halka ka dhacay iyo ciidda dagaalamaysay iyo ciidda ku jirtay waxa weeye ama Goof waxay doonaan ku urursadeen ama hub Buntland ka soo qaateen ama waxay doonaan sameeyay anagu dad garanayo is yaqaana oo si fiican si yaqaana baanuna ama waayirka ceergaabaha soo kaxaysteen ama waxay doonaan soo kaxay ma aqalka yar la sheegay in la Buntland u tagay iyo calan madow iyo calanka Buntland haday doonaan ay taagayaan ee ay halka ka taagayaan ee xukuumaddu aragto ee ay waxba ka qaban laadahay ee xukuumaddiina waxa ku ay marayso Garadag laga qaado ciidamada jooga oo dhan ee ay ka leedahay intaaba ay leedahay waxa Garadag ciidamada jooga oo dhan baa kamid ahaa Celaf Weyn la gari laakiin Garadag ciidamada saaka waa taa la qaaday waxa soo dhan waxa kamid ah nintiisiina waxa ku wari laga yeelay iyo nintiisiiba waxa ku wari aan la yeelaynba xukuumadda waxaan leenahay cadaalad arrinka ka noqdo. waxa kaga hadalaa shirka jaraa'idda dawrnahay dhalinyarada biciidada degmada Garadag calaamadan midada ka socotay
cilif weyn muddada 3 sano ah ee soo afgo'ila iyo taageerada ku taageerino Suldaan Saciid Yuusuf ee shirkii jaraayadu dooraad qabtay labada qodob baan kaga hadlaynaa toore hadda ka horeeyo colaadan horta waxa markii hore waday ay ka bilaabantay oo dabada ka waday Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga wadani waa wada hadeer isaga xurinaya waxa leeyahay xukuumadda iyo madaxweynaha Musabbix reer lagu barhaali galiyay hadda xukuumadda galxaj raali galiyay iyo reer wadani kursiga ay ku raali noqonayaan kursiga waka warka hore dad iyaga raali galayso intaas leeyahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa beesha dhasayna arwaan haytaaba isayneen waxa leeyahay saddex beeshu dagaalku wuxuu dhixiyay galxaj bari wax la yiraahdo iyo bohoreer la yiraahdo wuxuu dhixiyay saddex sabab iyaga badee saacadiyo ku ka hadliyay galxaj bari wala la ugumaan tagin biciiday iska day farax biciidan ku jirin haddana waxa leeyahay galxaj bari iyo biciidaynu nahay ma waxaynu kala qaadaa xukuumadda la hayro kala bax nabadda marka loo baahday timaada hadda loo baahan nabadii maraysan ma jirto والسلام عليكم ورحمة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرنا نهاي dhalinyarada beesha bicida Yunis waxaan saaka saxaafadda u qabanay hadallo indhoweed ka soo baxay nimanka la baxay waan walaalana garxajis bari la baxay annaga bicida Yunis baan la yiraahdaa waxaan ugu baaqayaa xukuumadana ciidamada gobolka Sanaag waxa lagu samirsiiyay nin oo bedelkooda lagu samirsiiyay nin ciidanka ninkii kaga jiray uu duurka ku jira lagu samirsiiyay nin ciidanka ninkii kaga jiray uu duurka ku jiro oo isaga qorigiisa iyo direeskiisa ay duurka ku jiraan ba kuwa lagu samirsiinay waxaan horta ugu samirsiin maayo kuwa mid kalena waa taageerayo anaga hadalkaygu wuxuu ku dhanyahay hadalkii Suldaan Saciid uu ka yiri ceelf shirki jaraad ka yiri ku dhanyahay daan bicida Yunis nahay Cabdiqaadir Salaad Jaamac Bulsha TV degmada Garada